صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 سنذيو فرض كأوغا فقرة سكذا. السلام عليكم، رمضان كريم، جمعة مبارك. daawadayaal kusoo dhawaada mawduuceena maanta oo aynu kaga hadli doono qaar ka mid ah dhaqamadii iyo dabeecadihii suubanaa ee uu lahaa nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam, oo ay nooga waramayso hooyadan Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiqi radiyallahu anha. فقرة سكذا سيا سنذيو فرض كأوغا فقرة سكذا سيا سقذ دحل الكيتوسا ربي أسجوذو. ku jawaabtay markii laga weydiiyay wax Aisha radiyallahu anha dhaqanka suuban ee nabiga, waxay tiri ma ahayn mid codkiisa kor u qaada, mid hadal xuma ma ahayn, xumaantana xumaan kuma uusan abaal marin jirin, balse wax buu cafiyi jiray, waxna wuu dhaafi jiray. waa qayb ka mid ah dhaqankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee layna faray in aynu kaga dayano. waxaa layna faray in aynu la nimaadano dhaqankiisa ka ugu wanaagsan. nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in loo soo saaray in uu dhaqanka wanaagsan dhammaystiro. mar kale oo Aisha radiyallahu anha wax laga weydiiyey dhaqankii nebiga calayhi salaatu wasalaam, waxa ay ku jawaabtay dhaqankiisu qur'aanka ayuu ahaa. waxay Aisha radiyallahu anha tilmaamtay in aanu nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalka xun aqoon, hadal adkayna, balse hadalkiisu dabacsanaa, dadkana soo jiidan jiray. sidoo kale ma ahayn mid codkiisa kor u qaada, iyada oo haddana suuqyada yihiin meelo lagu gorgortamo oo codka kor la isugu qaado, haddana suubanaheena calayhi salaatu wasalaam codkiisu mid hoose ayuu ahaa. nebiga naxariistii nabadgelyo korkiisa haatay haddii hadal xun uu la kulmo oo lagu yidhaahdo, ma ahayn mid hadal xun ka horgeeya oo ugu jawaaba, balse wuu dhaafi jiray oo cafin jiray. waxa weeye in dhaqannada jira ee bulshadeennu leedahay aynu u bandhigno dhaqanka suuban ee nebigeena calayhi salaatu wasalaam. wixii aan waafaqsanayna aynu waafajinno. waa inaynu u dayano suubanaheena calayhi salaatu wasalaam. mawduuceena maanta inta idinku eegyahay. wassalaamu calaykum.